بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورسكني فاكسينيشنka iyo talaalka ka hadlayeen ku dhex jirnay waxaan ku jirnay chapterkii shanaad uguna dambeeyay cashirka nooc noqday cashirka ugu dambeeyay in hal cashar baa ka dambeyn doona halka cashar practical ah ayuu noqon doonaa aynu bal isleegi doona talaaladii iyo noocyadoodii iyo qaabka loo isticmaalayo cashirka practical kaasi xaggii theory-ga cashirkana ugu dambeynay qaybtan waxay ka hadlaysaa waa special populations marka xagga care-ka laga hadlayo iyo post vaccination care-ka dad baa jiray iyagu mudnaan gaar ah la sii siinayo dadka mudnaanta gaarka la sii siinayo waxa ugu horeeya pregnant women oo ah hooyada xaamilada ah hooyada uurka leh marka iyada calaamad kasta oo unusual calaamadihi caadiga ah haday la soo baxdo waa laga warhaynaya sidoo kale health care provider-ka ayaa loo gudbinaya to monitor for any unusual symptoms waxaad qoraysaa waxaad la soconaysaa yani xaalad calaamad kasta oo calaamadihi caadiga aan ahayn report them calaamadahan waxaad u gudbinaysaa report ku qoraysaa health care provider marka waxay u baahan calaamadahaas si degdeg ah looga qabto waxa dadka labaad hore waynu soo aragnay dadkan xagga nimanka post vaccination care waynu ku sii daraynaa immunocompromised individuals baa jira dad difaacoodu tanaasulay dadkaasina talaal qaadashada laftooda qaab gaara way talaalka ugu qaadanayeen marka iyagana waxaa la eegayaa watch signs of infection calaamado infection inuu soo baxay marka qaarkood talaalku iyaga xanuun ku keeni karaa oo prolonged side effects ama inay calaamadihii muddo dheer qaateen muddadii loogu talagalay ka dheeraadeen qolada saddexaad waa childrenka waa caruurta iyagana use age appropriate to be release baa la isticmaalayaa yani waxyaaba xanuunka ka baabi'iyo oo yani ku habboon agekooda ama da-dooda waxaa ka mid ah cold compress in meesha dibin iyo waxaa yeelato in qabow waxa la yar saaro waxaa jiray distraction techniques waxay ahaayeen waxyaabihii ilmaha yar marka la talaalayo kale lagu ilowsiinayay ama cabsi lagaga saarayay calaamad waxyar ku ciyaaray hadal iyo waxa loo sheekay xaasay ahaayeen marka iyaga sidoo kale waxaa la monitor gareynaya xumad hadday jirto ama ensure adequate hydration sidoo kale waxaa la siinaya fluid ku filan ayaa la siinaya waxaa laga ilaalinaya dehydration waxyaha qaybta ku xigta waa reporting adverse events mashaakilaadka dhacayay ee talaalka ka imanayay in la report gareeyo la diiwaangeliyo ayaa iyaduna meesha ku jirta marka waxaan ku eegnaa halkan systemska reportingka loo isticmaalo worldwide qaabka loo report gareynayo iyo muhiimadda reportingka uu leeyahay intaasaan ku eeganaa marka waxaa kamid ah waxyaabaha systemska reportingka la isticmaalo mid la yidhaha FAIRS oo la yidhaha vaccine adverse event reporting system waxaa isticmaala maraykanka isticmaala other systemska kale ee similar systems kale jira exist in other countries oo dalal kale ka jira kaana waxaa la yidhahdaa yellow card scheme in the UK kana ingiriiska laga isticmaala si loo report gareynaya haddaba waay marka health care provider-kii iyo qofkii la talaalay baa wada xiriiraya ama waalidkii hadduu ilmo yahay wada xiriiraya dina calaamadii iyo waxay arkeen bay soo gudbinayaan waxaanay kusoo gudbinayaan online ahaan bay kusoo gudbinayaan telefoon bay soo diri karaan waana iman karaan health care providers-kii patients can report adverse events online or via phone marka haddii meeshu dee system lagu wada xiriirayo digital uu jiro waalidkii iyo xarunta caafimaadka ku wada xiriirayaan online bay kusoo wada hadlayaan kusoo gudbinayaan telefoon bay kusoo gudbin karaan haddii qofkii xarunta caafimaadka joogay telefoon ay kasoo qorteen ama de way iman karaanba haddii ay u dhow yihiin waxyaabaha haddaba la report gareynaya waxaa kamid ah waxaa la report gareynayaa nooca talaalka lot numberka ama serial numberka uu leeyahay iyo calaamadaha soo muuqday reporting muxuu muhiimad leeyahay reporting wuxuu muhiimad leeyahay help us naga caawinaya monitor vaccine safety wuxuu ilaalinayaa talaalka badqabnimadiisa sidoo kale wuxuu aqoonsanayaa identify rare side effects calaamadaha reerka ee inta badan aan la aragna kala qoro wixii halkaas laga ogaanaya waxaa jira long term monitor wax la yiraahdo long term monitoring waa wax muddo dheer soconaya oo qofka la talaalay waa muddo dheer la soconaya immunity-ga difaaciisa iyadoo la eegayo talaalkii ma shaqeeyay sidoo kale talaalkani intee lagu qofka immunity-ga sama difaaciisa ilaalin karaa marka antibody-dii laga sameystay markii hore talaalka ee jirka uu sameystay difaaci uu sameystay baa la eegaya difaacaas ma jira mise meesha uu ka baxay si qofka loo siiyo marka talaalkii xoojinta marka check waxa lagu hubinaya antibody levels wala heerka antibody-da difaaci jirka uu sameystay if necessary haddii laga maarmaan tahay sanaan for occupational requirements dadka inta badan ka shaqeeya goobaha health care providers dadka talaalka la siinay
muhiim bay u ahayd in la talaalo sidoo kale qofaa la doonaya in meel laga shaqo geliyo meesha qofka laga shaqo gelinayo waxaa looga baahan yahay qofka inuu talaalnaado marka talaalkii qofkii wuxuu horaan talaalka u qaatay kaarkiisana uu sidaa si markaa loo hubiyo in immunity-ga haystay in kale iyagana occupational requirements way noqon karaan goobaha shaqadii xasa ayaa looga baahan yahay booster doses baa jiray booster doses waxay waa talaal qofka la siinayo oo kii hore ee primary-ga ahaa ayuu xoojinayay marka waa xoojinu marka qofka waxaa lagu wargelinayaa patientka ama qofkii talaalka hore u qaatay inuu u baahan yahay booster doses booster doseska muhiimadiisa waa maxay waa to maintain immunity-ga si loo xoojin weeye marka inform patients waad wargelinaysaa bukaanka about the need inuu u baahan yahay for booster doses talaal xoojin ah to maintain immunity qodobka kale long term monitoring waxaa kamid ah vaccine effectiveness-ka in la eego talaalka yani waxtarkiisa marka monitor waxaa la eegaya qofka laga eegaya for breakthrough infections xanuunada inta badan dadka bulshada dhexdooda ka dhacay ee isqaasiyaan xanuunka qofkan miyuu ku dhacay mise kuma dhacin salaan covid-19 oo kale qofka laga baaraya kadibna haddii mushkiladaas ay timaado effectiveness-kiisii wanaagiisii xumaantiisa labadaba waxaa loo report garaynayaa to health authorities cidda awoodda u leh ee ka shaqeysa caafimaadka ayaa loo report garaynaya haddii qofkan talaalkiisa shaqeeyay haddii aanu shaqeyn labadaba marka marna waxa weeyaan dee waa positive feedback marna waa negative feedback positive feedback waxa weeye talaalka uu shaqeeyey qof xanuun kuma dhicin xanuunka laga talaalo kuma dhicin marna waa negative feedback oo xanuunka laga talaalay baa ku dhacay marka waa long term monitoring baa la yidhahdaa kana waxa weeyaan addressing vaccine hesitancy sababta dadka loogu wacyigelinayaa talaalka marka ay yani ka bacaysan yihiin ama xog qaldan ay ka haystaan marka dadka waxaa loo sameynaya reassurance waxa weeyaan dadka in shakiga wixii laga saaro oo yani wixii laga dhaadhiciyo ay noqonaya marka si looga dhaadhicinaya waxaa la siinaya provide evidence based information xog baa la siinaya ku salaysan evidence daliil ku salaysan burhaan wadata about vaccine safety oo ka hadlaysa talaalkan inuu wax tarayo iyo yani safety-giisa badqabnimadiisa iyo efficacy-giisa ah waxtarkiisa qodobka ku xiga waa sharing experience waxa weeyaan dadkii talaalka qaatay talaalku wuxuu ugu taray ayaa dadkii kale weli talaalka aan qaadan bay la wadaagayaan xogtii talaalka iyo khibraddii talaalka ay la wadaagayeen iyo wanaagiisa taas marka waxay keenaysaa dadkii kalena inay istalaalaan marka encourage waxaa lagu dhiirigelinayaa vaccinating individuals dadka la talaalay share inay la wadaagaan their positive experience xogtooda wanaagsan ee talaalka inay la wadaagaan dadka kale si dadka kale ay isu talaalaan qodobka kale ee lagaga saari karo dadka vaccine hesitancy waxaa kamid ah community engagement in bulshada lafteedu ay ka wada qayb qaataan in bulshada soo wacyigeliyaan oo dadka bulshada wax laga dhageysto ay hogaamiyaan bulshada kadibna ay dadka wax u sheegaan marka work with community leaders waxaa lala shaqeynayaa dadka bulshada hogaamiya to address concerns in ay dadka u gudbiyaan yani waxyaabaha ka wacyigeliyaan oo kala hadlaan waxyaabaha ay qabaan ay talaalka dadka qabaan ay leeyihiin laga jahil saaro and build trust lana dhiso aaminaadooda iyo kalsoonidooda la dhiso marka dadka inta badan dee bulshada ay dhageystaan community leaderska ah ee aqoon-yahan kale culimada leh bahda dhaqan kale dadkaasi waa in iyaga marka hore seminaar inta loo qabto dabadeetana barnaamijkii iyaga laftooda la fahamsiiyo kadibna bulshadii iyaguna ay ka qayb qaataan talaalka inay ku wacyigeliyaan wanaagiisa summary-ga qaybta chapterkan u dambaysa summary-ga waxa weeye post vaccination care waa shay aad u muhiim ah oo lagu hubinayo safety-ga bukaanka iyo side effects-ka dadka in loo sheego side effects-kaas marka loo sheega maxaa la socda in la manage gareeyo marka wuxuu ka hadlayay monitor for immediate reactionka jirka uu sameeyo immediate-ka in la monitor gareeyo oo yani lala socdo kadibna in la manage gareeyo common side effects-ka waxyeelada guud ee waxa uu leeyahay talaalku in la manage gareeyo qodobka kale waa educate patients dadka in la baro what to expect yani what to expect waa maxay waxa weeyaan wixii dadku ay rajayn lahaayeen talaal kadib waa in la baro walaata marka la talaalo ilmuhu cod buu yeelanaya marka ilmaha la talaalo meeshu way xanuunaysaa meeshu way casaanaysaa meeshu mararka qaarkood barar bay yeelan kartaa
waxyaabaha loo sheega. sidoo kale chapterka waxaan ku dhiganay qaybtan samirigu sheegaya post vaccination care waxaan ku dhiganay report advice events in la diiwaan geliyo mashaakilaadka daran to health authorities loo sheego cidda awoodda u leh maamusha caafimaadka and provide long term follow up as needed. sidoo kale waa in la bixiyaa in muddo dheer lala socdo talaalka iyo waxtarkiisa si loo ogaado adres dadka laga wacyigeliyaa vaccines through education iyadoo wax la barayo yani walaaci iyo mashaakil sitisigu maxay ahayd vaccine sitisigu waxay weeye dadku inay misinformation ka haystaan ama ka baqanaya yani dad talaalkii diidan weeyaan markaan dadkii wax la baro oo talaalkii laga saaro mushkiladda and community engagement iyo in bulshadu ka wada shaqeyso iyadoo community leaderska la isticmaalayo. chapterkani shanaad bartaasuu ku eegyahay marka xiisada practicalka waynu hadhay insha allah. xiisada practicalka intaynu isugu iman doono waxaad kaga tegaynaa faa'iidaysi habboon. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.